بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبد الدنيا كجوكتان نتيجة الشركي فيلا الصومالية ما أنت كدعي waxa uu ku soo dhamaaday ayaan rabnaa inaan idin la wadaagno sidaas ballanteena ahayd hadii ilaahay uu nagu guuleeyo inaan soo tabino natiijada shirkaasi uu ku soo dhamaaday oo ay ku kulmeen qoliyaha loo yaqaan maanshiil oo aad u taqaanaan naagii hiraab mucaaradkii state kan Maryland ka soo jeeday oo inkaarta ku dhacday iyo ma arkayse hogaamiyaha hawiye Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda wardhiig lay fadhiya sheeganayana dawladnimada Soomaaliya shirkaasi natiijadiisa hadaan farta ka saaro anoo waqti badan aanan haynin oo aan rabo inaan soo gabagabeeyo daqiiqadan hawada saaxiibka aan ku nahay shirka horta waxa hogaaminay oo ku jiray dhankan mucaaradka dadka sheegtay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ahaana ninkii lixda gobol kala gooyay loo adeegsaday dadka digla oo miriflaha inta la degan madaxweynihii saddexda gobol noqday shabeellada hoose gatay 19 milyan oo dollar oo by cash ah siistay ninba wuxuu leeyahay laguma maqlaayo laakiin ilaahay uu imaqlaaya ka waran ilaahay uu imaqlaaya bal ka waran rabbigay hadduu imaqlaayo malaa'igtana ay maqlayso maxaa looga baahan yahay dad kale ma arkaysa inay maqlaanba lama baahna marka si kastoo ay ahaataba mashquuliskaasi walaalkaasi warkeena dhibaaya halkaasi aan ku ekayno waxaa hogaaminayay nin la yiraahdo Yuusuf Baadiyow oo isagu ma arkaysa macnaheedu mucaaradka ka midka ah waxaa kale oo ku jiray ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya kooxdii nabad iyo nololna ka tirsanaan jiray waxaa nasiib darro ah nabad iyo nolol qof ka tirsan maanta in ma arkaysa dawladnimada burburkeeda uu ka shaqeeyo haddana deegaankiisa in lagu duulo nasiib darro labaad waa nin u dhashay digla oo mirifle nasiib darro saddexaad waa nin araaridii u soo dagaalamay oo dalkan ma arkaysa xuquuq ku leh waxa soo dhan waa nasiib darrooyin isu bahaystay gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waa ka xumay meeshaas inuu isdhigo ma arkaysa ninkaas intaas xuquuqa ku yeeshay state kan la dulminayo duulaanka lagu yahay adigu kooxdaas ay ahaayeen Xasan iyagu way soo fariisteen Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku yiri maxaa qorshood haysaan waxay ku yiraahdeen wixii aad noo qorshaysid ayaa inoo qorsho ah sayidi waxaan rabnaa inaad nageysid meesha lafta gareen uu fadhiyo inaan ugu bedeshidaan rabnaa kadibna aan ku shaqeyno aan ku adeegno qofka aad tiraadid noo xir waa ku xiraynaa qofkii dil aan tiraadid waa ku dilaynaa saar rabtid ma arkayse macnaheedu sheeg si kastoo ay ahaataba walaalayaal ma arkayse Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku yiri nimay oo dhageysta xal kale aan hayo ma jiro caasimada Baraawe oo state-ka Maryland oo astaysan oo anaga hawiyana aan rabno in meeshaasi macnaheedu shidaalka ku jira aan soo saarano Soomaalida aan ku xukunno meeshaasi meel aan ahayn oo aan idin geyn karaa haba yaraatee malahan buu yiri meeshaas baan idin geynayaa farsamada aan isticmaalayaan haddaan ba idin sheegayaa buu yiri koow meeshaasi Ethiopian hadda ma joogo waxaa jooga niman la yiraahdo Ugandesna waxa weeye hawiyay ka mid yihiin sidaan rabnaan u adeegsan karnaa waa nimankii shalay ciidamada daraawiishta ah markii Baraawe aan ku weerarnay dhaawacooda macnaheedu lagala baxay gaariga garoonka macnaheedu aan ku amarnay inaysan ka soo degi karin ciidamada Maryland marka daraawi Ugandeskan isticmaalaynaa buu yiri koow waa magacii admis haday ogow oo Soomaalida oo dhan ay u sinayd ay ahayd state-ka ay joogto inay la shaqeyso sida sharciga uu yahay sharciga ku dhisan ee dalada qaramada midoobay lagu keenay marka nimankaasi wuxuu yiri waan xoojinaynaa waan la shaqeynaynaa missionkan ma arkaysa inayna la fududeeyaan ayaanu ma arkaysa dhacsiinaynaa waa qodobka labaad wuxuu yiri wixii hawiye ah oo ma arkaysa macnaheedu banaanka jooga iyo wixii gudaha caasimada jooga waan soo ururinaynaa wixii furimaha ka soo baxay wixii ma arkaysa macnaheedu xamar jooga wixii ma arkaysa fakad ah wixii mooriyaan ah wixii meelaha wareegay
wixii adduunyada oo dhan ay soo nacday badda ay soo tuftay waxaan leenahay kaalayo hoy hunguriyaa la idin hayaa sidii salbalaar 97 tuug walba daarood ah dir ah hawiye ah digil aw mirifla ah baydhaba aada aan qabsanno aan bililqaysanno oo kale sidaasaan ku samaynaynaa baashaan waa isugu tegaynaa magaca dowladda magaca fakadka tuugo kulli waa ururinaynaa waxaanu leenahay mooryaan kasta qof walboo derbiga jiifa kaalaya beesaa dhalatay iyo nolol beesadu xaggay taallaa baraawe ma aadi marka wuxuu yidhi amisom markaan saas u xoojinno ciidamada xooggooda waxay noqon doonaan habar gidir iyo abgaal wixii hawiyaha iyagay noqon doonaan hoggaanka iyagaa qaban doona kuwa kalena raaciyaal bay noqonayaan wixii la soo ururiyey soomaali kastana waa u yeeraynaa qof kasta macnihii meelaha maraaya mooryaan ah kaalay xaggeen aadaynaa afgooye lugta ay ka bilaabaan ma arkayse macnihii afgooye ilaa iyo baraa waa lug lagu tagaayaa laleeyahy kii doon ku geli kara kii ma arkayse lug ku geli kara baabuurta xabadda aan karin kuwa xabadda kara kulli amisomtana waa la sii hadlaynaa ugandheeska jooga meesha isku urursanayaan wuxuu yidhi marka xasan muhiimaddeena waxaa weeye in garoonka ammaankiisi mar aan annaga sugno haddii garoonka macnihii ciidamadaasi tirada badan aan isugu geyno amniga aan sidaa gacanta ugu dhigno wuxuu yidhi marka diyaaradaan idinku guraayaa adinku haddaad tihiin ma arkaysa nimankan madaxda ah shariif xasan iyo maxamed mursal iyo yuusuf baadiyow iyo tiimkan baraawe waan idinka dejinayaa muhiim ma ahan baraawe magaalada kale inaad gashaan muhiimadda waxaa weeye garoonka keliya inaad lugaha geysaan mar haddii garoonka lugaha a geysaan meeshaasaa doorasho lagu qabanayaa marka waxaad leedihiin madaxweynaan dooranay masiirkii ma arkaysa statekan annagaa matalayna cabdicasiis lafta gareen waxaan ka dhigaynaa sidii dowladdii cabduqaasin salaad xasan oo kale markay timaaday nin waxaa jiray la dhihi jiray ina darmaan cabduqaasin markuu yimaaday oo madaxtooyada soomaaliya habar gidirta kale ay u diiday siiba sacad waxaa jirtay in uu degay lambar 4 iyo tirabuunka inta u dhaxaysa madaxtooye uu ka dhistay ilaa hadda waa caan madaxtooyadii cabduqaasin salaad xasan ayaa la yidhaahdaa madaxtooyadaasi madaxtooye ka ag dhow guri ka ag dhow waxaa madaxweyne kaga dhawaaqay nin talyaaniga ka yimaaday ee yurub oo la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdinuur darmaan oo u dhashay cayr habar gidir ah ninkaasi marka qandaraasuu soo qaatay in dowladda cabdiqaasin lagu burburiyaa loogu talagalay marka wuxuu yidhi anna madaxweynaan ahay biriijiyaan dhisaayaa ma arkayse macnihi webiyada 18 gobol baan geynayaa idaacadaha ayuu ka hadli jiray marka wuxuu yidhi cabdiqaasin aakhirkii cabdinuur darmaan baa ku bilaabay madaxweynimaduu kula dhegay kadibna kooxdii cartaa loogu yeeray muuse suudi iyo markay kooxdii carta ay ugu yeereen waxaa weeye dowladdu minay bac tahayna waa bajaynaa minay bir tahayna waan la jiraynaa minay jaay tahay aakhirkiina waxaa weeye imbagaati isagoo diidana lagu qasbay halkaasi ayaana looga guulaystay cabdilaahi yuusuf axmed iyo cabdullaahi axmed cadow oo u kala dhashay sacad iyo macnihi cumar maxamuud ayaa tartanka isugu soo haray cadow waa laga adkaaday cabdillaahi yuusufaa ku soo baxay 20 kun oo askari oo dalbaday wuxuuna markii dambe 100 kun oo askari oo u soo geliyey ma arkaysa macnihi hawiye iyagoo federalismka diidan Soomaali baa leh oo dhulka macnihi ay haystaan diidan in laga qaado federalismkii BM baa lagu liqsiyey shaati guduud iyo cabdillaahi yuusuf baa ku liqsiyey iyo aadan madoobaan hadda jooga iyo rag fara badan oo nool Saalim Cali oo Ibro iyo Cali Maxamed Geedi ay ka mid ka yihiin marka si kasto ay ahaataba Xasan Sheekh wuxuu yiri nimayow naf iiga dambaysa male fursadii noogu dambaysay adinkana idinkugu dambaysay anna iigu dambaysay waay marka baraawaan doorashadaasi ku qabanaynaa qasab maahan in gudaha magaalada aad gashaan qasab maan madaxtooyada inaad tagtaan muhiimadda waxaa weeye eeraboorkaasi qashin walba haykaley kasta dhilo walba dhilay walba macnii qashin walba mooryaan kasta inaan lacag u ballan qaadno meeshaasi ay isku shubaan lagu lugeeyo meeshaasi wixii lug ku tagi kara wixii dooma ku tagi kara wixii tuutaa dowladda wixii qabiil meeshaasi inaan isugu tagnaa mar haddii amisomtana aan sii xoojinay abgaali habar gidirna ciidamada ay hogaaminayaan
haddii aeroboortka mar aan gacanta ku dhigno diyaaradaan idinku qaadaynaa shariif xasanow farkeetiyow mursalow ninka la yidhaahdo yuusuf baadiyowow maxamed abuukarow ma arkaysa macnihii filay heblaayoy ma arkaysa macnihii filay ugu rooney waxaas ay dhihi jireen abwaantara shaabkeese wuxuu yidhi dadka maxaaga ah gabdhaha way caayaan ammaanayna uga dhigaan intay meel soo istaagaanay waxay leeyihiin dumar ugu filrooney waa la caayou yidhi lama ammaanin fil mayga waxaa weeye waa taqaanaan marka dumar ugu filrooney naag la leeyahay oo iska alalaasaysa marka filay xataa waa soo wadaynaa wuu yidhi xasan sheekh maxamuud filaydiinii raxaweyney waa soo wadaynaa laakiin meesha haddaan idin geeyo oo ma arkaysa madaxweyne aan idinka dhex dooro garoonka dhexdiisa sidii 6 gobol markii madoobe nuunow madaxweyne uu ka ahaa shariif xasan aan u geeyey baydhabo oo kale hadhowdii anaa ii shaqaynaysaan buu yidhi shaqaalaad ii tihiin meesha hawiya iska leh adinku pronoun ayaa tihiin bes qalinkaad leedihiin laakiin annaga ayaa hoosta ka maamulayna meesha horta shirka meesha saasuu ku soo dhammaaday laakiin macnihii ma aysan cayimin wakti go-an oo ma arkayse baraawe duulaankaas lagu qaadayo ma ku guulaysan doonaan mise kuma guulaysan doonaan anuu mooji laakiin waxaan rabaa inaan ku noqdo xasan sheekh maxamuud inuu munaafiq yahay bal fiiri nimankan maanta u yeeray markay lafta gareen shalay baydhabo uu ka soo degay uu u dhameeyey khudbaddii dhulgariirka ka dhignayd uu macnihii ku dul akhriyey la kala guuray xalay hurdo way ka soo dhici weyday xasan iyo hawiye way wareereen way qasmeen hadda ayaan kuu sheegay waxay ka wada hadleen haddaba 2 jeer ayaa xasan sheekh maxamuud professor jawaari oo hogaaminayo xataa dhuuso mareeb ama dhuuso mareebato ayay mar ugu tageen markaasaa waxay ku yidhaahdeen war xasanow ma arkayse macnihii doorashaan u baahannahay niyow baraawa doorashaha lagu qabto kaalay albaabaduu ka soo xidhay 2 jeerba marna baydhabo u kaxeeyey dhulkuu la tumay oo waxa weeye buudkuu kula la dardaray marna dhuuso mareeb bayba ugu tageen nimanka digil aw miriflaha ah ee macnihii hadda uu yeedhay iga taguu yidhi waxba idinma haayo waatan jawaari ay isku soo dagaaleen markaasi dagaalkaasina jawaari wuu ku baxay su-aal baan marku weydiinayaa haddii 2 jeer ay ku dhaheen niyow doorasho nagu taageer baraawe ma arkaysa macnihii nagee oo doorashada nagu saacid uu buudka la dulmaray nimankan islaam allow maantay xasan sheekh maxamuud inuu u yeedho markay lafta gareen macnihii uu qadiyadda dadkiisi uu raacay deegaanadaydii isbaara ma ogoli uu ka dhabeeyey inuu maanta u yeedho uu yidhaahdo hadda ayaan rabaa inaan idin taageero maxay ka dhigan tahay sow ma dhihi karna marka xasan sheekh maxamuud waa danayste hawiyuhu waa danayste waxaana ka sii liita nimanka mayland sheeganaya oo raxawooyinka sheeganaya oo maantay daciifnimadooda deegaanadooda oo isbaaro taalla aanay ka hadlaynin dilka dhaca boobka kufsiga duulaankan lagu yahay ummaddan la ciribtiraayo sumcad xumo iyo magac xumo la raba in loo jiido kaamam qaxooti lagu xareeyo hadhowdiina lagu tuugsado sawiradoodana lagu caayo la gumeeyo in ay qabiilkooda sheegtaan heer ay gaaraan macnihii la raba in la gaarsiiyo kuwa ma arkayse macnihii deegaankooda sidaasi duulaanka lagu yahay walaalayaalow sii daba jooga xasan sheekh maxamuud sow kama liitaan marka waxaan rabay si kooban live-ku waa ku badbatay waana i dhibsateen raalli ahaada salliga waan idiin banaynayaa facebooka garoonka ku baashaala natiijada shirkaasi ayaan rabay inaan halkaasi kusoo gebagabeeyo kolley dagaalkii maanta dhacay ee hawiye ay 2 jeer weerar soo qaadeen yaa aqbari weyne oo birta laga aslay meydadka ay dhooban yihiinna siro fara badan oo kalaa soo baxaya waa inoo berri haddii ilaahay uu ka raali noqdo marka haddii marka digla aw miriflaha iyo inta la degan reer mayland haddii baraawe ay difaacan karaan iyo dhulkooda iyo dowladooda iyo hadday isdhiibayaan iyagay u taallaa tookadan laakiin haddii lagugu dul dego waa markii lagu dhammayn lahaa sidii maadanlayaasha dad la dhihi jiray mayland ama raxaweyn ama digla aw mirifla jiri jiray geeska afrika ku noolaan jiray waa la dhihi doonaa ciilka la idiin qabo marka nasiibkiinii iyo sida aad u dadaashaan dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso
safarku waa uu dheeryahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftaan la isu dhiibayay la isma siini muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballanteena waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa